السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معناتها waxaa bilaabi doonaa anemia. Waxa loo yaqaan anemia markaynu ka hadalno waxa waaye waa decrease blood carrier oxygen, decrease RBC, also decrease hemoglobin. That is anemia. Anemia waa in dhiiggu oxygentu qaadi yaraato, RBC ay hoos u dhacdo, hemoglobin ay hoos u dhacdo. That is anemia loo yaqaan. Anemia wuxuu ka dhigmaa carbon loo yaqaan microcyte, normocyte iyo macrocyte. Microcytes waxa ka hoosgareyn kara waxa loo yaqaano iron deficiency, hemolytic anemia, something like that. Normocytes waxa la yiraahdo chronic diseases like cancer, HIV, also like that. Sidoo kale waxaan eegi karnaa in macrocytes waxa ka hoosgareyn kara vitamin B and folic acid deficiency. That's all. Haddaba waxaynu ka hadlaynaa waxa ka hoosgareemay anemia. Anemia waxa ka three types. In decrease of production of RBC la soo saaray inuu decrease soo badar jir awgeed, iyo in increase of destruction of RBC gina burburinayo, iyo blood loss dhiigiiba in la lumayo. That is three types of RBC are caused. Okay, mid hanu dhaxgalno markaan ka hadalno waxaan ka hadlaynaa decrease production of RBC. markaynu ka hadlayno waxa ka mid ah wax ka hoosgareyn kara waxa loo yaqaano malnutrition. Malnutrition-ka waxa ka mid ah iron deficiency in dhacdo, also sidoo kale vitamin B12 deficiency and also folic acid deficiency. labadoodu waxay ka hoosgareeyaan inuu hoos u dhacdo DNA synthesis. DNA synthesis marka hoos u dhacdo also waxa hoos u dhacaya soo saarin RBC. autoimmune wuxuu attack-gareynaya wax loo yaqaano gastric brittle cells. Gastric brittle cells kaas wuxuu soo siidaa wax la yiraahdo intrinsic factor. marka uu gastric brittle cells kaasi uu ka attack-gareeyo oo burburiyo lama soo sheegno wax intrinsic factors ka shaqeeyo waxa tahay inuu absorb gareeyo iron. mar haddii intrinsic factors la soo sidinayna iron soo absorb gareeyo ma jirto oo iron taasi oo baas gareynaysa. That's why waxa markaa iron deficiency haddii yimaadana waxa dhacaya in RBC soo saariyo. sidoo kale waxa imaanaya waxa la yiraahdo plastic anemia. Plastic anemia means bone marrow failure. Bone marrow inuu fail garoobo to produce RBC la soo saaray inuu ku fail garoobo bone marrow oo soo fail garooya. waxyaabaha qaar baa soo kara in autoimmune dhaco kalate oo waxyaabaha ama cellskii RBC ama cellskii soo saaray RBC la burburiyo oo destruction ku dhaco. That is ka hoosgareyn karaysa. sidoo kale waxa ka hoosgareyn karaysa chronic kidney disease. waayo kidney waxay soo sidaysaa wax loo yaqaano erythropoietin. erythropoietin ayay soo sidaysaa. maadaama erythropoietinka markay soo sidayso uu tago bone marrow-ga oo stimulate gareeyo in la soo saaro kidney chronic disease ku jiro waxa hoos u dhacaya erythropoietin la soo sidaynaya. That is why waxa yaraanaya wax stimulate gareeyo bone marrow-ga oo u tilmaama inuu soo saaro RBC.
sidoo kale waxa sababi karta waxa loo yaqaan chronic diseases ayaa sababi karta chronic diseases waxa la yiraahdo chronic disease oo ay kamid tahay inflammatory reactions like rheumatic arthritis cancer waxa soo dhigay taas waxay soo jeedaan wax loo yaqaan cytokine kaas waxay RBC lagu buriyo maxaa ka qaaday waxa loo yaqaan hemolytic anemia hemolytic anemia waxay ka qaadaysaa RBC la buriyo hemolytic means hemo means a bronchial breakdown waxa la buriyo RBC kuwan iyaga hemolytic anemia waxa la qarsaarna labo inuu noqoto genetica iyo acquired genetica kan waxa kamid ah sickness and disease waxa loo yaqaano waxa kamid ah sclerosis waxa kamid ah thalassemia thalassemia intaas waxay ka kooskarayaan in la burburiyo RBC acquired waxa kamid oo kale noqon kara drugs also sidoo kale toxic some drugs ma jira burburinaya toxic sida maska oo kale qofku ma ku qorino toxic sunta maska oo kale wax burburisa also waxa kamid ah infection waxa kale oo kamid ah malaria loo yaqaano especially falciparum malaria sidoo kale waxa kamid ah waxa loo yaqaano autoimmune ayaa kamid intaas waxay kamid tahay waa hemolytic oo ah destruction of RBC waxyaabaha RBC ga burburin kara ay kamid tahay sidoo kale waxyaabaha RBC ga burburin kara intaas loo leeyahay hadaba RBC ga marka la burburiyo waxay noqonaysaa RBC maadaama la burburiyay ironti maxay ku riiteen garoofaysaa in the body jirka dhexdeeda maxaa ku haraysa ironti ku haraysa RBC maadaama la burburiyay ironti xagee ku haraysa jirka dhexdiisa ayay ku haraysaa iyadu sidoo kale haddana waxaynu ka hadlaynaa waxa loo yaqaano coscarenia anemia oo tii saddexaad ee coscarin lahayd anemia oo ah blood ka laba kala saarayna waxaanu kala saaraynaa acute iyo chronic acute ka waxaanu saaraynaa plate inuu noqdo trauma keeni kara trauma mar hadduu keeno waxa dhacaya waxa loo yaqaano hypothermia means with low volume of volume and near means in dollars ku hoos u dhaco marka dollars ka hoos u dhaco waxay maraya hemodulation wax leeyahay hemodulation ka hadii maado waxa jira splintu waxay samaysaa in uu ay store gareyso some RBC maadaama RBC gi uu lumay oo bloodka uu lumay waxay isku dayeen in compensate resource then for 5 ilaa 14 waxay isku dayeen 14 days waxay isku dayeen in ay compensate resource ay wulbina okay oo no sidoo kale waxaanu ka hadlaynaa waxa loo yaqaano chronic maxaa dhacay chronic waxa weeye waa pathological chronic waxa kamid ah isaga GI bleeding ba kamid ah gastrointestinal bleeding like PUD or peptic ulcer diseases also colitis ba kamid ah sidoo kale waxa noqon kartaa cancer ba sababi karta cancer ayaa sababi karta waxa kale oo sababi karta waxa loo yaqaan fibroid
fibroid ayaa sababi karta also waxa sababi karta worm oo ah sida helminth worm oo kaleete sida worm waa helminth infection oo kaleete in parasite uu yimaado sida hookworm oo loo yaqaano oo kaleete ayaa sababi karta blood loss inuu yimaado that is blood loss anemia haddaba blood loss anemia wuxuu to iron loss iron tiba loss sababta maadaama iron waxa la yiraahdo blood loss yimid ferritin oo ah meesha lagu kaydiyo ama ironta ayaa waxa sameynaysa inuu depletion ku dhaco oo hoos u dhacdo yaraato maadaama blood fara badan ferritin kaasi waxa sameynaysa in ay lunto taasoo marka ferritin ta lunto blood iron loss ba dhacayo iron losses ba dhacayo ferritinku waa meesha ironta lagu kaydiyo iron depletion hadii ay dhacdana ferritin depletion hadii ku dhacdana ironki losses way that is three types are causal of anemia loo yaqaano waa saddex sababood ee sababa anemia that is loo yaqaano anemia hadda markaynu ka hadalno anemia waxa soo cause garin kara saddexda type three types ka cause garin kara this one last type of anemia cause garin kara one blood losses ku dhici karta ayna soo garto iron deficiency also waxaynu ka hadli doonaa signs and symptoms of anemia signs and symptoms of anemia markaynu ka hadlayno waxa jira wax la yiraahdo underlying cause of anemia waxa jira underlying cause of anemia markaynu ka hadlayno waxa dhici karta waxa loo yaqaano iron deficiency markay dhacdo qofka maxaad ku arki kartaa iron deficiency haday dhacdo qofka waxaad ku arki kartaa waxa loo yaqaano angular stomatitis inuu dhulkaas cadaan ku yeesho oo cadaan dhulkaasi ayuu ka yeelan karaa inuu dhulkaas cadaan ku yeesho ayuu ka yeelan karaa also sidoo kale wuxuu yeelan karaa waxa loo yaqaano mouth ulcers ayuu yeelan karaa sidoo kale iron deficiency haday dhacdo hair loss baa iman kara inuu qofka timihii ay ka daataan ayaa iman karta sidoo kale waxyaabaha iman kara waxa kamid ah iron deficiency oo pica ama craving eating wax la yiraahdo jira some patients waxay jecel yihiin inay cuntooyinka qaar ay xiiseeyaan cunaan sida ice cream oo kale solid glay waxyaabaha carrada oo kale cunaan waxyaabo noocaas oo kale ay jecel yihiin inay isticmaalaan oo loo yaqaano craving eating inuu qofku wax jabto oo kale loo yaqaano sidoo kale iron deficiency haday dhacdo hemoglobin decrease bay noqonaysaa qofku waxa lagu arkaa pallor meelaha lagu arkaa pallorka waxa lagu arkaa skinka kor waxa lagu arkaa mucosa conjunctiva meelahaas oo dhan waxaad ku arkaysaa nile pedicka waxaad ku arki doontaa dhulkaas oo dhan in uu imaanayo qofkaasi uu iron deficiency ay tahay iyo arki doontaa imaanaysaa vitamin B12 maxaa sababi karta iyaga vitamin B12 markaynu ka hadlayno haddii ay dhacdo neurological features baa imaada waxay kamid tahay waa underlying cause of anemia vitamin B12 deficiency haddii dhacdo waxaad ku arki kartaa qofkaasi vitamin B12 neurological features waxa kamid ah restlessness inuu qofkaasi ama koma galo peripheral neuropathy baad ku arkaysaa this is what disease of peripheral nervous system oo kaleete inta badan ay fikrayso legaska sidoo kale waxa special spinal cord problems ka ku keeno waxa ka arkaysaa weakness mid kale tingling waad ka arkaysaa jiriiro aad arkaysaa qofku dareemi kara sidoo kale numbness kabubiyo wax la yiraahdo hadii gacad waqti badan ku shaqeyn weydo also that ayaad arki kartaa sidoo kale hemolytic anemia qofku markuu haday tahay maxaad ku arkaysaa jaundice maadaama RBC gi decrease lagu dhacay waxa kor kordhaysa bilirubintii ayaa
kor baxaysa oo protein fara badan baa la soo saaraya taas jaundice qofkan waa yellowish sclera indhihiisa waxaad kala doontaa isagoo yellowish soo kale plastic anemia maadaama dhacdo maxaa la soo saarin bone marrow failures bone marrow wuxuu ku filgarow inuu soo saaro RBC-gii WBC-gii platelet-kii that's why qofku wuxuu halis u yahay infection maadaama difaaca jirka uuna jirin waxa kale oo halis u yahay bleeding maadaama platelet-kii ay yar yihiin oo soo saarin qofkaasi dhiig bax ayuu yeelanaya sidoo kale sickle cell kaasi leg ulcer buu qofku yeelan doonaa stroke buu yeelan doonaa pulmonary arterial hypertension waxa la yiraahdaa ku dhici doona pulmonary arterial hypertension hadduu ku dhacaan waxaad arki doontaa shortness of breathing qofka inuu yeesho fatigue inuu yeesho daal inuu dareemo qofkaasi syncope tawakhaad inuu yeesho chest pain buu qofkaasi yeelan doonaa also edema syncope waxyaaba saas qofkaasi yeelan doonaa marka haddaba markaynu ka hadalno waxaynu ka hadlaynaa waxa loo yaqaano sign and symptom of anemia laba qaybood oo muusan ka yimaada waxa la yiraahdo hypoxia iyo waxa la yiraahdo hypoxia markaynu ka hadalno this is waxaynu ka hadlaynaa waxa la yiraahdo hypoxia means waxa weeye lack or decrease oxygen in the tissue oxygen tissue gataysi inay yaraato haddaba hypoxia maxaa soo karta hypoxia marka uu qofkaasi noqdo muscle-kii maxaa ku dhacaya muscle-kii maxaa ku dhacaya inay noqdaan qofkaasi inuu dareemo weakness also sidoo kaleete fatigue inuu dareemo waxyaabo noocaas oo kaleeta wuxuu dareemi karaa weakness fatigue waxyaabahaas oo dhan uu dareemaya maadaama hypoxia tahay oo oxygen iyo tissue-gii ay yar yihiin weakness uu dareemi doonaa fatigue buu dareemi doonaa sidoo kaleete nervous systemka maxaa dareemi doonaa nervous systemka labaan u qaybinaynaa waa central nervous system iyo peripheral nervous system oo qaybin doona central nervous system markaynu ka hadlayno qofku waxa uu dareemi doonaa Allahu musta'an central nervous system qofku wuxuu dareemayaa wuxuu dareemi doonaa cognition decreased cognition especially in children in mental retardation ku dhaco carruurta gaar ahaan qofkaas waxa kale uu dareemi doonaa inuu qabo fighting tawakhaad inuu dareemo also inuu dareemo dizziness also insomnia means lack of sleeping inuu qofkaas hurdo waayo uu seexan waayo waxyaaba saas oo kale headache inuu dareemo waxyaabaha hadho waxa kale in central nervous systemka waxyaaba hypoxia ku cause karin karto haddaba markaan in peripheral nervous system maxay dareemi doonaa qofkaas wuxuu dareemi doonaa tingling extremity especially hand and feet inuu qofkaasi jiriidho ka dareemo extremity gacmaha iyo lugaha inuu qofkaasi jiriidho ka dareemo haddaba markaynu u imaano waxa la yiraahdo hypoxia wax soo exacerbating ischemia waxa la yiraahdo maadaama bloodku ku yahay ischemia means less of blood maadaama yaraaday maxaa sameeyay angina iyo claudication waxa la yiraahdo ayuu sameeyay angina iyo claudication sababi karta waxa la yiraahdo angina iyo claudication ayuu sababi kartaa haddaba labadani markaanu ka hadlo angina claudication for example waxaanu soo qaadanaynaa coronary artery maadaama uu bloodkii yaraaday bloodkii maadaama less noqday oo uu yaraaday angina coronary ama myocardium kan ka hadalna ama coronary artery markaanu ka hadalno metabolismkii wuxuu isku bedelayaa muxuu ahaa metabolismkii wuxuu isku bedeli doonaa from aerobic to anaerobic ay isku bedeli doonaa metabolismkii aerobic ayuu wuxuu ka bedeli doonaa aerobic oo wuxuu isku bedeli doonaa anaerobic buu isku bedeli doonaa maadaama aerobic iska soo wuro anaerobic metabolism wuxuu anaerobic metabolism wuxuu soo jeedaa lactic acid wax loo yaqaan lactic acid kaas waxay sababaysaa angina chest pain inay sababto
chest pain inay sababto waxaana sababi karta kaas haddaba sidoo kale claudication waa limping extremity qofkii uu dhutiyo inuu dhutiyo marka uu walki sameeyo dhaqaaqayo uu socod sameeyo inuu qofkaasi dhutiyo uu laangalayo daadis waxaa loo yaqaanaa claudication wuxuu sameeyaa waxay tahay qofku markuu socdo energy fara badan buu luminaya maadaama oxygen ku yartahay jirku wuxuu faraya inuu dhutiyo uu qofkaasi lugta ka dhaqaaqayo kadibna uu rest galo marka uu fadhiiso intaa wuxuu jirku uga dalay in socodka uu yareeyo qofkaasi socodka markuu yareeyo jirkiina waa xariif Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray si wanaagsan kadibna marka uu jirkaasi rest sameeyo waxa recovery sameeyo claudication qofku kala sameeyo oo sidoo kale anjeenaagi uu degaya maadaama uu energy fara badan uu luminayo qofkii fadhiistay oo rest galay waxa dhacaya in maxay hayday anaerobic metabolismkii uu isku filan yahay oo uu jirkii dhexdiisa ku filan yahay oo ku shaqeyn karo taasi waxa loo yaqaanaa waa hypoxia iyo waxa ay sababto anemia waxaynu haddaba ka hadlaynaa hypoxemia maxay tahay hypoxemia waa less oxygen waa decreased oxygen in the blood dhiigga dhexdeeda oxygen ku jirta oo yaraata haddaba dhiigga dhexdeeda oxygen ku jirta marka ay yaraato aan qoro this is decreased oxygen in the blood that is hypoxemia haddaba hypoxemia markaynu ka hadlayno decreased blood in the noqdo waxa jira waxa la yiraahdo chemoreceptors oo laga helo below the carotid artery then chemoreceptors kaasi wuxuu stimulate gareeyaa brainstemka gaar ahaan medulla oblongata then medulla oblongata wuxuu isaguna stimulate gareeyaa respiratory rate-ka in kor u qaado respiratory rate-ka marka kor loo qaado waxa qofkaas ka arki doontaa respiratory rate-ki marka kor loo qaado qofkaas waxaad ka arki doontaa qofkii oo wuxuu yeelan doonaa tachypnea wax la yiraahdo tachypnea or shortness of breathing tachypnea qofkaas waxa noqonaya hyperventilation haddaan noqdo oo respiratory rate kor loo qaaday oxygen saturation kor buu kacaya waxa kor u kacaya oxygen saturation ki kor buu kacaya also sidoo kale medulla oblongata wuxuu simulate garin doonaa sympathetic activity kaasna wuxuu isaguna kor u qaadi doonaa heart rate marka kor loo qaado waxaad arki doontaa heart rate marka kor loo qaado cardiac output-kiiba kor u kacay maxaa noqonaya cardiac output-kii ayaa high noqonaya cardiac output-ka markuu high noqdo oo saturation ay high noqoto waxa high noqonaya oxygen waxa la yiraahdo oxygen fallagas means movement inay maritaankii ay oxygentu dhiigga dhex maraysa inuu kor u kaco oxygen fara badan ay dhiigga dhex marto si loo yareeyo hypoxia also marka heart rate-ka kor loo qaado waxaad arki doontaa heart rate marka kor loo qaado waxa kor u kici doonaa myocardium increase noqon doona myocardium workload waa kor u kicina myocardium workload marka kor kacana wuxuu qofkaasi develop garin doonaa ventricular hypertrophy inuu ventricularki weynaado oo ventricular hypertrophy u dhaco markaad x-ray saarto qofkaas cardiomyogyny waad ka arki doontaa maadaama ventricular hypertrophy noqdo qofkaasi wuxuu develop garin doonaa ama aad ka arki doontaa heart failure wax la yidhaahdo failure buu qofkaasi develop gareynaa heart failure markuu develop gareeyo haddii uu develop gareeyo left ventricular failure waxaad ku arki doontaa pulmonary edema also sidoo kale waxaad ku arki doontaa wax la yiraahdo orthopnea oo qofku marka uu jiifo in uu dareemo naqasku ku dhigo haddii uu qofkaasi develop gareeyo right ventricular failure waxaad ku arki doontaa systemic
systemic edema sidoo kale waxa increase noqon doona GVP jugular venous pressure jugular venous pressure kaas wuxuu noqon doona inuu increase noqdo oo uu kor u kaco maadaama waxyaabaha calaamadaha lagu kala saaro lagu kala garto left ventricle oo left heart failure waxa weeye pulmonary effusion ama pulmonary edema yeesho or tongue yeesho hadii uu right ka u wareego waxaad arki doontaa systemic edema and also GVP increasing noqon doona. That is all of anemia. waxaan ka hadalnay anemia wixii cause screening wixii cause screening iyo waxaan ka hadalnay sinus symptoms anemia waxaan loo qaybinay laba saddex qaybood macrocyte normocyte iyo macrocyte soo kale waxaan qaybinay causeskeedii saddex qaybood oo ah decrease production of RBC increase destruction of RBC bone loss soo kale sinus symptoms underlying cause of anemia iyo sinus symptoms of anemia oo ah hypoxia iyo hypoxemia aan kala saarnay insha Allah managementkiisana dib ayaan ka dhigi doonaa waxaan diga tagayaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.